ciidamada wadanka Mareykanka ayaa gacanta ku soo dhigay madaxweynihii wadankaasi Venezuela iyo xaaskiisa sida uu xaqiijiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Mas'uuliyiin sarsare ayaa waxay sheegeen in madaxweyne Nicolas Maduro ay qabteen ciidanka Mareykanka ee Delta Force oo ah qaybta ugu sareysa ee militariga Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada. Mareykanka ayaa muddo dheer ku eedeynaya Nicolas Maduro inuu hogaaminayo shabakad caalami ah oo ka ganacsata daroogada, arrintaas oo marar dhowr uu beeniyay madaxweynaha gacanta lagu dhigay. Trump wax faahfaahin oo dheeraad ah kama bixin sida loo qabtay Maduro iyo meesha loo qaaday. Mareykanku waxa uu hore u ballan qaaday abaalmarin dhan $50 milyan cid kasta oo bixisa macluumaad horseeda qabashada Maduro. Dhankooda wasiirka difaaca wadanka Venezuela ayaa ku dhawaaqay in si degdeg ah loo daadgureeyay ciidamo militari oo laga kala diray guud ahaan wadankaasi, isagoo ku baaqay midnimo iyo iska caabin wada jira iyadoo laga jawaabayo waxa uu ku tilmaamay gardaradii ugu xumeyd abid ee lagula kaco Venezuela. Waxa uu sheegay in dhammaan ciidamada hubaysan la daadgurayn doono si ay uga jawaabeen gardarrada cad ee uu Mareykanku kula kacay madaxweynaha dalkooda.